gacan ku dhiiglayaasha soo mara dalka Mareykanka ayaa aad u tiro badan, laakiin waxay ku kala duwan yihiin habka ay u geysanayaan dilalka. Balse gacan ku dhiiglahan aan maanta muuqaalkeena kusoo qaadan doono ayaa xaqiiqdii aad ugu yaabiyey dambibaarayaasha ficiladii foosha xumaa ee uu ku sameeyey dadkii uu laayay. Kadib markii aad daabato muuqaalkan, waxaa kugu adkaa doonta inaad iibsatid cuntooyinka lagu iibiyo waddooyinka ama loo yaqaano street food, sababtoo ah dilaygan ayaa hilbaha dadka uu laayay ka samayn jiray cuntooyinka qaar, hambeegarka iyo kuwo kaloo badan. Sidaa daraaddeed waxaa naga xasuusinah inta aad daabinaysa muuqaalkan inaad muujisaan taxadar dheeraad ah. Si kastaba ha ahaatee, Joseph ayaa dhashtay taariikhda markay ku beegneed 2 Maaj sanadii 1953, wuxuuna ku dhashay magaalada Baltimore ee Maryland. Ninkan ayaa ka soo jeeday qoys ka kooban ilaa 6 qof. Mas'ale aabihiisa ayaa aad u isticmaali jiray khamriga, halka hooyadiina ay aad u isticmaali jirtay daroogada nooca loo yaqaano heroin. Waxaana halkan nooga cad in Mas'ale oo bartanka kaga jiray qoys daroogada aad u isticmaala. Markii uu jiray 6 sano oo kaliya, Mas'ale aabihiis ayaa ku dhintay shir gaari, waxaana halkan uga bilaabanaya nolol aad u adag. Waxaana la sheegay inuu ku soo barbaaray nolol aad xaqiiqdii u dhib badan. Markii uu jiray 18 sano oo kaliya, wuxuu ku biiray ciidamada militariga ee dalka Mareykanka. Waqtiga uu ku biirayayna wuxuu aad u isticmaalayay daroogada nooceeda kala duwan, wuxuuna markaan cagta saaray waddadii waalidiintiisa isagoo